dadkaas maxay ku yaaceen lugooda ku yaaceen kiibaad ka bixi lahayd libaaxa gaajoonaya bushaaro dhammaan bulshooyinta Soomaaliyeed waxaan ugu bushaaraynayaa inaan idin hayno daawo gebi ahaanba tirtiraysa dad badanna Ilaahay kaga caafiyay xanuunada macaanka, dhiigkarka, babaasiirta, kolestaroolka, infekshanka, xasaasiyadda, gaastariga, kansarka, dhagxaanta kelyaha iyo beerka iyo weliba kuwa kale oo aan halkan ku soo koobi karin kuwaasoo laga sameeyay khudaarta iyo cuntooyinka daawada ah. Sidoo kale waxaanu idin haynaa gariimadii oo iyaguna dabiici ah. Daawooyinka waxaa ka mid ah daawada loo adeegsado dadka xasuustooda hoos u dhacday isla markaasina waxba xifdii karin. Daawadani waxay ka samaysan tahay kafee dabiici ah waxaana ay kor u qaadaa caafimaadka, xasuusta iyo weliba xifdiga. Kuwa miisaanka lagu dhimo, kuwa caloosha lagu jaro, kuwa midmada wajiga baabi'iya iyo kuwa kale oo aan halkan ku soo koobi karin. Haddii xaaladaadu ay xun tahay ama aad u baahan tahay shaybaadh, waxaa ku jooga doctor caafimaad. Sidoo kale waxaanu ku haynaa dadkii Ilaahay xanuunadaasi kaga caafiyay oo ka warramaya marxaladii ay soo mareen iyo sidii dalka gudihiisa waxba looga qaban kari waayay. Kuwaas oo qaar ka mid ah qabeen xanuunada aan daawada lahayn sida kansarka. Haddii aad u baahan tahay muuqaaladaas iyo weliba faahfaahin dheeraad ah, fadlan nagala soo xiriir lambarka shaashada ku qoran. Sidoo kale waxaan ku hayaa fursad shaqo oo aad kaga shaqaysan karto meel kasta oo dunida ka joogto. Shaqadaasina waxaad qabsan kartaa xilligii aad doonto ama firaaqaad haysato. Waana shaqo run ahaantii aan oran karo waa shaqooyinka ugu fudud uguna lacagta badan. Haddii aad u baahan tahay iyadana waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada ku qoran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الوالد السلام دمانتين ملك صندوق داونيسان رمضان مبارك وسoo dhawaada barnaamijkan cusub al xiraal qaybtiisa koowaad muuqaalka dhamayso si uu ku dhaafo dhadhankiisu fadlan page-ka follow garee muuqaalka like saar YouTube-ka hadda tahayna subscribe tiin lagu tilmaamay inta hadda aad samayso waxa qofna ku qaaliya magacaasa Yahya saaxib halkan waxa ku jira 5 warqadood waxa ku qoran su'aalo marka warqadaha la bax su'aasha kaaga soo baxda إن شاء الله تعالى بندق جوابي سؤال شنو يرى دهتاي qofkii soo qoray baa akhri karayaan malaynaya su'aashana waxay u qormaysaa adiga iyo laba nin oo saaxiibadaaya saddex baatii Soomaa ayaa israacay ka bacdi waxa tagteen xaflad baa tagteen xafladii marka taa u tagteen ninkii waaridiyaha ayaa ninkii koowaad ee saaxiibkaaba ku yiri wuxuu ku yiri 6 buu ku yiri ka bacdi 3 buu iska jaro wuxuu yiri 3 uu galay kii labaad buu wuxuu ku yiri 9 3 buu iska jaray 6 buu yiri isna uu galay adigana wuxuu ku yiri 4 imisa doodan lahayd anigana 4 buu yiri waxaan oran lahaa 3 may ما يوحنا حلولها حل قف وارد وكان كلا تشريبا لو حرياني استحوي يقول way su'aasha aan ku faa'iideeyay su'aashaasi waxa weeyaan kii kood wuxuu ku yiri 6 buu ku yiri Soomaa wuxuu tirsaday xarfaha ereyga 6 wuxuu ka kooban yahay la iyo ha 3 xaraf 3 buu yiri kii labaad wuxuu ku yiri 9 wuxuu ka kooban yahay hadii la tiriyo 6 xaraf adigana 4 buu ku yiri ina waxayd inaad 4 inta xaraf ka kooban tahay inaad xisaabiso aad iyo aad baad maadsantahay saaxib soo dhow saaxib oo dhawey saaxib Ramadan Kareem magaca saaxib magacaygu waa Khalid walaal Khalid halkan waxa ku jira sidaan hore soo sheegnayba waxa ku soo haray imka 4 warqadood la bax su'aasha kaaga soo baxday insha Allah nooga jawaab بسم الله sheeg salaada yeelan karta 4 taxiyaad taas ku dayo salaadaas tiin kasta salaaduhu badankooda laba taxiyaad leeyihiin haddana waxa laga hadlayaa marka lacala iyadoo ragcad ka tageen aad timaado oo kale iyadoo ragcad iga tagtay oo kale markaan imaado sama waxa laga yaabaa markaad ugu timaadid taxiyaadka labaad isagoo ku jira sheekhu haddana aad ragcada la bilaawo iyo amba rukuucdii ku dhaafto aad ragcada dib soo bilaawanaysid oo taxiyaadkii sheekhi aad taxiyaadkiisa la taxiyaadsatay ka bacdi saddexda taxiyaad kale xiginaad israacisid ay noqon kartaa
ها sida kale jawaabtu waa ku sax laakiin salaadii yeelan kartay salaada yeelata salaada 4 ragcadood la tukanayo salaad 4 ragcadooda sida kale waa taxday laakiin waxa weeyaan waa salaada maghrib aad iyo aad baad u mahadsantahay saaxiib isku dayga wax walba oo ka muhiimsan yahay thank you mahadsantahay soo dhow saaxiib wandhow saaxiib magacaaga maxamed cabdiqaadir aadan maxamed halkan waxaa ku jira 3 su'aalood baa ku haray 3 su'aalood mid baad la baxaysaa ka bacdi su'aasha kaaga soo baxda insha Allah ta'ala wad uga jawaabi doontaa bismillaah su'aashu yara dheertay aan ku akhriyo su'aashu waxa weeyaan rasaas baa meel ka dhacday cid ku dhimatayna ma jirto haddana dadkii way ku yaaceen dadkaas maxay ku yaaceen lugooda ku yaaceen thank you saaxiib wad garatay walaad ka jawaabtay legend soo dhow saaxiib magacaaga wandhow cabdiraxmaan maxuudin axmed cabdiraxmaan oo isku magacabayno saaxiib halkan waxaa ku jira 2 su'aalood baa ku haray labada su'aalood mid kamid aad la baxaysaa insha Allah jawaabtuna isleegina su'aashan yara dheertay haddii aan ku akhriyo waxa weeyaan haddii lagugu xidho xabsi 2 albaab leh xabsigaas 2 albaab uu leeyahay albaab kamid ah waxa fadhiya askarigii oo qorigiisa sita albaab kamid ah waxa fadhiya libaax gaajoonayo oo aan 2 sano waxba cunin kiibad ka bixi lahayd libaaxa gaajoonaya libaax sababta libaax 2 sano gaajo ma u noolaadeenba ku dhacsaa sidoo kale waxaa ku hayaa fursad shaqo oo aad kaga shaqaysan karto meel kasta oo dunida ka joogto shaqadaasina waxaad qabsan kartaa xilligii aad doonto ama firaaqaad haysato waana shaqo run ahaantii aan odhan karo waa shaqooyinka ugu fudud uguna lacagta badan haddii aad u baahan tahay iyadana waxaad nagala soo xidhiiri kartaa lambarka shaashada ku qoran